السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لي كسر هذا مكتوب عشرة كسب سنة برشلونة اللغة الإنجليزية طبعا عشر كان وحنا كسب سنة conversation والشيكيسي اللغة الإنجليزية مركلة بقف ولا هندسة موضوع وعشر كسب سنة هي معرفة وحلا هلا بوك اللي آخرين تمركب بوابة اللي آخرين تولا هلا سدرت عشر يعني قلنا وحدي تلاقي تصالة أما فكرة طبعا كومنت وصل اليوم بس ايميل كينا او info@himolaacademy.so waxaa hadlaya marka b ayaan dhaxnay eegii ayaa hadalka bilaay waxa uu yiri how often do you read books marka had iyo jeer yalla marka how often had iyo jeer sidee baad do you read aad u akhrisaa marka books marka waxaa loola jeeda hadda imise ama had iyo jeer miyaad akhrisaa buugga marka ayaa loola jeeda markaad leedahay dabcan markaad weydiinayso qof oo kale how often do you read books marka soomaalida waxay noqonaysaa had iyo jeer imise ayaad maaragtay buug akhrisaa marka ayaa lili karaa marka يعني ويت هذا آخر المك بوكس هو جمع وبوك بيجي وحيري I wait وحنا أخريا books بوقتها almost every night هبين ولبا before I go to bed أنت أنا سرير تمام أنت أنا سرير أيام بحبين ولبا أنا أخريا مك almost هذا حلول جدا يعني بدنا مك بدنا every night ولبا before I go to bed مثلا أنا سرير تمام هذا bed بحول جدا سرير ما أي وحول جدا what is your favorite type of book ومحي بوكا خاص كأحمرك أما وحكى له كلا what is your favorite type of book علي كلا book أبكهشو وكامرك book أبكهشو book الخاص كأجعشه وكامرك I love وحن جعل هاي reading أخرينتا about different cultures وحكو سابسن نغمت كلا دوان I love وحن جعل هاي reading أخرينتا about different cultures نغمت كلا دوان وحكو سابسن أيان جعل هاي إلى أخرينك What can you learn from books طبعا حق B أيا لغربي A أيا لغربي عفوا What محا can you learn أيا تكبرن كتا from books بوقت books وحاول بوقت can broaden my horizon about thousands of things around the world and books are also my best friends books بوقت can broaden my horizon waxay kobcin karaan maskaxdayda hada erigan broaden waxa loo jeedaa kobcin marka ama kor u qaadis my horizons waxa loo jeedaa marka yani maskaxdayda marka aragtida qofka ayaa loo jeedaa hadiyo maaragtay experience oo kale maaragtay waxa la dhihi karaa maskaxdayda marka maskaxdayda ayay kobciyaan loo jeedaa horizon waxa loo jeedaa hada marka aragtida qofka wixii kobciya ayaa loo jeedaa marka about wax ku saabsan thousands of things around the world yani kumanaan shay oo kala duwan oo ku saabsan dunida ayaa maaragtay maskaxdayda buugtaan ka helaya ayuu dhahay sidoo kale books buugta are also my best friends waa saaxiibooyinkayga khaaska ah marka ama ugu wanaagsan ay leedahay halka marka wuxuu yidhi waxaa la yidhi koodii waxaa la weydiiyey what can you learn maxaad ka baran kartaa from books buugta maxaad ka baran kartaa buugta wuxuu ugu jawaabay books buugta can broaden my horizon buugta waxay kor u qaadi karaan maskaxdayda about wax ku saabsan marka thousands of things kumanaan shay oo around the world ku saabsan dunida kumanaan shay oo ku saabsan dunida ayay maskaxdayda ayaan ka heli karaa ayaa hadda loola jeedaa the books buugta sidoo kale waxay yihiin are also sidoo kale waxay yihiin my best friends
saaxiibooyinkayga ugu wanaagsan marka. Okay. Where do you read books? waxaan weydiiyey marka halkeed ku akhrisaa buugagta. I read waxaan ku akhriyaa books buugagta at home guriga, sometimes mararka qaarna in the library library-ga ama maktabadda. hadda library waxaa loola jeedaa maktabadda. Okay. waxaa yidhi waxaan ku akhriyaa guriga mararka qaarna maktabadda marka. waxa kale uu sii weydiiyey oo halka uu soo socdaa. waxa uu yidhi what is the most interesting book you have ever read? waxa uu yidhi what is waa maxay the most interesting book buuggii ugu xiisaha badnaa. the most interesting waxaa loola jeedaa buuggii ugu xiisaha badnaa oo buuggii ugu xiisaha badnaa you adiga have ever read adiga aad akhriday marka. Okay. waxa ugu jawaabay bigi waxa ugu jawaabay I think waxaan u malaynayaa that would be Nabal. kaa wuxuu noqon karaa buugga Nabal. marka waa maxay buuggaas? wuxuu yidhi a book written waa buug laga qoray about wax ku salaysan the country of Nepal waddanka Nepal yidhaahdo wax ku saabsan ayaa laga qoray published waxaana lasoo daabacay Inari 1999 marka ama 1999 marka ayaa lasoo daabacay marka. ereyga written waxaa loo jeeda hadda waa white ay ka timid marka. country waa waddan, Nepal waa waddan Asia ku yaal marka. wadamada Asia waa markeena marka. ereyga published waxaa loo jeeda hadda waxaa lasoo daabacay marka. Inari 1999 marka. Okay. wuxuu yidhi how long does it takes you to finish a book? how long does it takes you imise ayay kuu qaadataa to finish inaad dhamayso a book marka. inaad dhamayso akhrintiisa ayaa loola jeeda hadda. waa xigaag it depends on the length of the book. waxay ku xiran tahay depends on waxay ku xiran tahay iyada the length of the book dhererka buugga marka. the length waxaa loola jeeda hadda waa dhererka buugga ay ku xiran tahay. but laakiin it usually takes me a week to finish a 300-page book. but like it usually takes me had iyo jeer waxay u qaadataa a week to finish inaan dhameeyo a 300-page book ka kooban 300 oo page ama book waxay u qaadataa week marka ama isbuuc. wuxuu yidhi do you usually bring books with you when you travel? adiga usually had iyo jeer bring these books miyaad wadataa buugagta. ereyga hadda bring sidiis waa keenis, laakiin hadda waxaa loola jeedaa markaad baxayso waad safrayso buugagta ma wadataa marka. do you usually adiga had iyo jeer bring miyaad wadataa ama keensataa books buugagta with you adiga oo wata when you travel markaad safrayso markaad safrayso ama safarka aad aadayso buugagta miyaad wadataa. yes I do waan sameeyaa sida when I am at the airport or bus station markaan ahay airportka ama bus stationka aad waxaa loola jeeda goobta baska laga raaco marka. I read books waan akhriyaa buugagta to kill time inaan waqtiga ku lumiyo marka. wuxuu leeyahay markaan joogo airportka iyo bus stationka waxaan isticmaalaa buugagta si aan waqtiga u dilo marka. wuxuu yidhi is there any bookstore or library in your area? wuxuu yidhi marka meesha aad degan tahay waxaa ku yaala goob buugagta lagu akhristo ama maktabad marka. unfortunately nasiib daro there are none near my house. waxba ma ku yaalaan ama waxba ma ahan meesha aan deganahay. nearest one kan ugu dhow is ayaa 3 kilometers away. 3 kilometer ayuu iga fog yahay marka. casharkii intaas ayuu kusoo gabagabeynaya. casharkan ku kulmi doono. asalaamu calaykum.